magacayga cali macallim waxaan ka mid yahay odayaasha nabadgelyo ama al-fataax waan ku xumahay dhibaatadii xali dhacday shaydaamihii geystay ilaahay biidnillaahi tacaala waxaan ka baraynaa saacadan laga bilaabo inay gacanta soo galaan nin dulin suubi oo dadka meeshaan joogo cidiisi joogo shaqadiis haysto umada masaakiin noo dilay ilaahayna waxaan ka baraynaa masiibo cad Allah ku rido guriga ama godobta iska baxayna guriga maad guntaas ka baxeen ayagoona sabr iyo khaybar Allah siiya ninka ama ka dambeeyay ama dulanka suuba ama diyaar u ah inay waxa leeyana ilaahayga caadilka waxaan ka baraynaa inay soo gacan galaan nin alla ninkii ninkaas arkana dadweynaha unuguna aan shaqayn sagiir iyo kabiir hooyay aabba dadkoo dhan waa wada intelligent dawladda kale aan lagu sugan bileyshan lagu sugan nin kastoo meel aad joogto caawmaanin ilaahayna tugo idinkana dadaal suubiye haddii intaa suubina qowlka xaqood lagu hadla ilaahayna saacidayna ilaahayna waxaan ka baraynaa anugu jumlahaan faataxadan aan u wada marna dadka laga dhintayna sabar aan la sii gurigaas ka baxmo ninka gunta ka baxay waa godob ahaan sabar iyo iimaan Allah na sii gogishiis ka baxayna kuwa lama daama ka sii roona Allah na sii dambigaas ninkii geystana ilaahay wada caadil loo u joodo ilaa wadiga kaamil adaa hayyo adaa qaadir wax walba iyo waada rabbi yow raxmaanka waxaan ka baraynaa umadaas dambigaas musiibadaas geysatay ama dulum ha geeyeen ama dardaaran ha geeyeen gacan ku diglii dambigan lahay ama lukulahay ilaahay waxaan ka baraynaa inaad ilaahay gacanta soo guriyo anuna sabr iyo iimaan Allah siiyo inna lillahi wa inna raaji'uun walaalkeen xalay meel aan joogno aan la ooyne ilaahay waxaan ka baraynaa insha Allah gacantii ka aqdarneed Allah soo qabto gacantii ka aqdarneed ama intii qalqaalisay ama intii garab u ahayd ragii bilcaan waxay noqdaan ilaahay jalla jalaaluhu maanta waxaan aga barinay maanta axad insha Allah cawada inay dhaafino ilaahay gacanta soo geliyo walaalayaal waxaan doonaynaa walaalaheena haddaan nahay islaamnaha nin kasta oo 9 saac habeen ma joogo haddii ninka xumaan suubinay markuu arko inuu tiinaayo ka shakiyo warniyo maxaa ku socotaa intaadna ka imaatay xaaladaadan say tahay maxaad ka socotay walaalayaal haddaan islaamnahay inaan doonaynaa laga doonaa dhibaatadan wajaar maanta ugu ma horeyso hadda ka hore masaajidka weynaa sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab uga shiman leh yaa 2 saac habeen ma la dili mar labaad saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kala imaanaysa Soomaaliya wehelin haysaa gaaladan maanta Soomaaliya u kaalmeen haysaa ilaahay markaan ka cabsano walaal meeshka nala dhiga walaalayaal ka Soomaali lama dhihi karo muslimna lama dhihi karo ninki dhiig muslim walaalkiis daadi oo dhiig walaalkiis daadi kaas mo Soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadan waxba kuma laha marka walaalayaal jalla jalaaluhu ilaahay waxaan ka baryaynaa ehelkii uu ka baxay ninkaas oo saaka tiiraysan oo saaka ooysan oo saaka la ooynay ilaahay waxaan ka bariyay maantadan axad gacanta Allah ku soo dhigo kabti ay aadeen haday rabaan inay kurina tagaano meel Allah meeshii la tagay dhiigaas muslimka ma qarsami doonee gacanta Allah ku soo dhigo lillahi wa inna ilayhi raaji'uun musiibadan dhacday musiibo weyn ayaa meeshan ka dhacday rabbi subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii dhinteen ilaahay ha u naxariisto dadkii dhinteen oo xaq darrada lagu dilay ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay dadkii dhibkan geysteenna Allah waxaan ka baryaynaa ilaahay ha soo qabto batroolkii iyo markii dadkii xoolihii dad qaadeen iyo markii dadkii dhameeyeen oo qof markii muslim ah oo iska masaakiin ah oo markii inta iida wax ka raadsanay dilay Allah waxaan ka baryaynaa Allah macbuudka ah inaad dadka asiga ay soo qabto ilaahay waxaan ka baryaynaa bal faataxada mara dadkaas inaad ilaahiga macbuudka ay soo qabto ilaahiga macbuudka ay soo qabto arintan dhacdadan berge kaliya ma ahan maandhowno hoodan san oo kale ay ka dhacday petrol station ayaa dib san oo kale ay iska dhacay oo la dhacay haddana maanta haddana way soo noqotay markan insha Allah ta'ala arintaas waxaan doonaynaa insha Allah reewajeero dhamaala gacanta inay iska gashadaan oo dadkaas dambi geysanaya la soo qabto oo waliba markay dadka oo dambiyalka baara oo in badan magaalada nala joogo eed ay arrimaan ay u gaabiyeen waxaan doonaynaa insha Allah ta'ala qolada security oo amniga u xil saaran inay dadkaas ay raadiyaan oo dadkaas si cadaalad ay ku keenaan oo markii cadaalad ay soo horjoojiyaan
waxaa kaloon ma arkay u taasiyeynaa qoladii laga dhintay oo ciddii ma arkaysaa qowskii annaka dhammaan ayaa nagala dhintay waana ka xunnahay arrinta iida ah waxaan leenahay ilaahayga macbuudka ay wiilkaas jannaatul firdows ilaahay ka waraabiya qoladii ayaa iska dhintay oo qows ahaan aas ka baxayna sabar iyo iimaan allah siiya bedelkiisa wax ka khayr badan allah siiya